إخوتي في العقيدة waxaan intii alla inooga qoro subxaanaه wa tacaala ka odhan doonaa mowduucaasi ku saabsan alإkhlaas. alإkhlaas kelmaddan khalasa af carabiga waxaa lagu yidhaahdaa tadullu calى tanqiyati الshayءi wa tahdiibi, waa shayga oo laga saafi yeelo ama se laga hagaajiyo waxa kale ku dhex qaldan. qofka marka la yidhaahdo akhlasa diinah, diintiisii buu khaalis yeelay, macnaheedu waxa weeyaan diintiisii ayuu wixii kale ku badhxanaay oo dhan ka saaro ilaahay subxaanaه wa tacaala keligii buu ula jeestay. maalan qur'aanka ilaahay wuxuu tilmaamayaa min bayni fartin wa damin labanan khaalisa, min bayni fard uus iyo dhiig dhexdood ayaan caano nadiifa ka soo saaray ba ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala. marka ilaahay xoolaha caanahaas uga soo saaray uu tilmaamayo, ilahay wuxuu leeyahy min bayni fartin wa damin labanan khaalisan saa'igan lishaaribiin. idan khaalisan marka la leeyahy yani wuxuu khaalis ka yahay min shawaa'ib alfarti waddam, uuskii iyo dhiiggii toona caanaha kama dhadhamayaan ee caano badhax tiran oo ka nadiifa oo aan waxaas oo dhami ku dhex jirin baa ilaahay soo saaray. markaynu kelmaddan ikhlaaska tilmaamayno waxaynu uga jeednaa markaasi qalbiga qofka muslimka ah in laga maydho oo laga saaro waxyaabaha shawaa'ibta ama waxyaabaha mukadaraadka ama waxyaabaha labaya ee qasaya ee saafinimadiisa u diidaya. taa waxaynu uga jeednaa ilaahay subxaanaه wa tacaala jidka loo maraa waa jid laysku itixaamayo. ariiqa xagga alle u kacaa waa ariiq leh muncarijaat iyo mafaawid, jibaal, qutaacu ariiq, lusuus. waa jid baynu leenahay dhibaatooyin badani qofku intuu dhex socdo ka hor imanayaan. waa jid baynu odhan karnaa buuro leh oo qutaacu ariiq leh, dad tuuga oo jidka kuu fadhiistoo lusuus leh. waxaasoo dhammina waxa ay kaa xumaynayaan waxa weeyaan camalkaagu inuu noqdo mid maqbuulah oo ilaahay subxaanaه wa tacaala agtiisa laga aqbalo. marka aynu ikhlaaska ka warramayno waxaynu u jeednaa inaynu isweydiinno baacidka ama waxa kugu kelifaya inaad camal samaysaa muxuu yihi. hada su-aal inaynu ka jawaabno. albaacid aw albawaacid waxa keensanaya dantiiyo qasdigaad camalka ka leedahay muxuu yahay. ma inaad ilaahay ku raalli gelisaabaa oo alle subxaanaه wa tacaala keligii baad ula qasdiday, mise ilaahay hayrkii baad ula qasdiday. maxaan ilaahay hayrkii uga jeedaa? yacni waxaa dhici kara inaad camal samayso, camalku uu ka mid yahay acmaasha khayrka lagu raadiyo, laakiin aad ku raadinayso magac, aad ku raadinayso maamuus, aad ku raadinayso in lagugu mahadiyo, aad ku raadinayso in lagugu bogaadiyo, aad ku raadinayso wax kale oo aan ahayn ilaahay taacadiisa subxaanaه wa tacaala. idan su-aasha isweydiinta leh waxay tahay camal kastoo aynu qabanayno danta aynu ka leenahay ama muraadka aynu ka leenahay muxuu yahay. ma waxaynu muraad u leenahay inaynu ilaahay raalli gelinno oo alle wejigiisaynu doonaynaa iyo maalinta qiyaame inaynu liibaanno iyo inaynu khayr helno, mise dadka ammaantoodaynu doonaynaa. maalan mithaal basiid, hadda waan hadlayaa, waxaanan ka hadlayaa in ilaahay subxaanaه wa tacaala camalka loo khaalis yeelo. qasdiguma wuxuu yahay inaan ilaahay raalli geliyo subxaanaه wa tacaala oo aan ajar iyo khayr ku raadiyo, mise wuxuu yahay in aan magac iyo maamuus idinkaga helo la yidhaha wallahi mustafa waa nin afyaqaan, ama waa nin deriska si fiican u dhigaya, ama yani ma maxmedaan ku doonaya, ammaan miyaan ku raadcaynaya, ma hantaan ku doonaya, ma ilaahay dartii baan u wadaa. waxaasi waxa ay ikhlaasku wuxuu kala soocaa camalku inuu noqdo mid maqbuulah oo ilaahay uu qofka ajar kaga siiyo, iyo inuu noqdo mid marduuda oo aan qofka laga aqbalayn. sidaa awgeed waxa habboon qofka muslimkii intaanu camal qabanin inuu qalbigiisa baadho, inaad naftaada baadhid dantaad ka leedahay muxuu yihi. waxa kan ma ilaahay dartii baad u wadaa, mise dana kale iyo ma'aarib kale ayaa kuugu jira. tan waxaa kuugu filan inaan xasuusiyo xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay ee abaa hurayra uu sheegayey. wuxuu yidhi dadka naarta lagu huriyo saddex baa ugu horrayn doona. dadka qiyaamaha naarta lagu huriyo
ee lagu gubo ee xaabada u noqon doona waxa ugu horayn doona buu leeyahay saddex awal man tusacar الnaaru calayhim saddexda tani maxay sameeyeen saddexdan wuxuu ku tilmaamayaa mid caalim buu ahaa cilmi leh oo qur-aanka akhriya oo habeen iyo maalinba qur-aan dad ama ku wacdinaya ama akhrinaya midina wuxuu ahaa qof hanti haysta oo wax bixin badan oo le ilaahay dartii baan wax badan u bixiyey midina wuxuu ahaa nin geesiya oo goob lagu dagaalamayo jihaadu ka socdo galay oo lagu dilay haddana saddexdanba waxaa la leeyahay naarta iyagaa loogu horraysiinaya su-aasha isweydiinta le waa maxay maxaa qofkii jihaadkan ku dhintay ama cilmiga dadka u sheegayey ama hantida bixinaya muxuu noqday ka naarta loogu horraysiinayo sabab waaxid sababtu waxa weeyaan waxaan camalkiisaanu ilaahay dartii oo qudha ula jeedin wuxuu nebigu tilmaamaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kan caalimka ay waxuu qur-aankan u akrinaya habeen iyo maalinba u waday in la yidhaahdo fulaanun qaari waa nin qur-aan akhris badan oo cilmi sheegid badan aakhire ilaahay wuxuu ku yidhahdaa markaa waqad qiil dee awalba intaasaa doonaysa intiina lagu yidhi aniga waxba iguma lihid baa laleeyahy subxaana wa tacaala waxaad u muxaadaraynaysa qur-aanka u akrinaysa u waday waa in lagu yidhaha wallahi ninkaa hebel la yidhahdaa waa nin magac iyo maamuusulo markuu khudbadda qabsado khudbad fiican jeediya intiina waa lagu soo yidhi baa alla ku yidhaahda subxaana wa tacaala dantaadu intaas ahayd intiina heshay idan kuwa naarta loogu horraysiyaa buu ka mid yahay wuxuu nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kan wax bixinayey wuxuu islahaa ha la yidhahda hebel war waa qof faxal oo gacan furan oo wax bixiya intiina lagu yidhi buu nebigu ku yidhaah ayuu nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay baa wuxuu yidhahdaa aakhiro waxaad rabtay inaad magac heshid oo aad ka fogaatid khasiisada xun ee dhabcaalnimada iyo bakhaylnimada inaad ka fogaatid oo noqotid nin dadku ay ku barteen ama gabadh lagu bartay inay wax bixiso dee markaad dunida joogtayna waa la odhan jiray hebel waa faxal gacan fiican kan dagaalamayayna waxaad rabtay baa la yidhaahdaa in la yidhahdo halka hebel kaa xiga nin baa kaa xiga waa geesi aan xaggiisa laga soo dhicin oo dagaalka hadduu jilibka dhigo aan kicin oo cid walba jebiya tiina lagu yidhi baa la yidhaahdaa ammaantaana heshay intaad dunida joogtay idan aakhire waxba heli maysid macnaha meesha ku jira markaa muxuu yidhi camalku inuu yahay shaygii ilaahay loogu dhowaan jiro qura ma aha waxa wax lagu helaa waa inuu yahay mid alle loola dan lahaa keliya in wax lagaga helo in ikhlaas uu ku jiro oo danta laga leeyahay ay tahay in ilaahay subxaana wa tacaala wax lagaga helo idan ikhlaasku waa meel sare dad badan oo acmaal samaynayaan acmaashoodu xagga alle tirsiisma ka ahayn sidaa awgeed waxaynu mar kasta u baahanay inaynu qalbiyadeenna dib u baadhno camal kastoo aad qabanayso inaad isweydiiso maxaad uga dan leedahay maxaad ka rabtaa ma dadka ammaantiisaad doonaysaa ma shuhro iyo magac baad doonaysaa ma xoolaad ku doonaysaa maxaa danta aad ka rabtaa tahay ma ilaahay dartii baad ku doonaysaa iyo inaad ilaahay ugu dhowaato subxaana wa tacaala waa mansilo runtii khatar ah cidda jaranjaradan ka gudubtaana wax fudud maaha nafta iyo shayطaanna ku dayn maayaana intaa waxbay kuu sheegayaan intaa su-aal bay kugu soo celinayaan sida awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka wuxuu ku leeyahay isagoo ka warramaya saxaabadii nebiga la dagaal gashay ee ghaswatu uxud ka dagaalkaa ka qayb gashay ayaa ilaahay wuxuu yidhi minkum man yuriidu اdunya wa minkum man yuriidu اlaakhira saxaabadii nebi maxamed baa lagu leeyahay minkum man yuriidu اdunya waxaa idinka mida mid adduunyo raadcaynayay oo dagaalka u galay inuu haniimo iyo xoole iyo wax soo helo waxaa kaloo idinka mida baa ilaahay leeyahay mid aakhiro doonayay haddii saxaabadii la leeyahay waxaa idinka mida qaar daacad ahaa oo ku doonayay camalkooda tan aakhiro iyo qaar adduunka iyo magac iyo maamuus iyo maxmado ku raadinaya idinka mid ahaa maxaad u malaynaysaa innaga markaa intee baynu qalbigeenna ka shaqaynaa intee baynu niyaddeenna hagaajinnaa niyadda hagaajinteedu acmaal badan oo la sameeyaabay ka fiicanta camal yar 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 baa janno weyn lagu helaa haddii niyaddu ay tahay tii ilaahay uu ina amray subxaana wa tacaala sidaa ogeed baa xadiidkii macruufkaa nebigu wuxuu tilmaamayaa inama alacmaalu binniyaat
acmaashu waxay ku asaxdaa ama se lagu aqbalaa niyo masaladan culammadu waxay dhahdaan niyada laba shay baa looga jeedaa midi waa niyadii cibaadada kala saarayay ma duhur baad tukanaysaa mise casar ma sunna mise waa farad waad niyeynaysaa waad ku kala soocaysaa midina waa camalka dantaada camalkan ka leedahay muxuu yahay idan waa niyo qasdiga ku saabsan walidaalika waa xadiidkaa culammadu waxay sheegaan nin ay u bixiyeenba muhaajiru ummu qays baa la odhan jiray bay yidhahdaan gabadh buu jeclaa dabeetana inuu guursadaa buu rabay gabadhii saxaabadii hijrootay bay ka mid noqotay madiinay tagtay waxa uu ku kaliftay markaa isaguna inuu soo hijroodo laakiin danta hijradiisu waxay ahayd gabadhii uu raadcaynayay inuu helo ayay danta hijradiisu ahayd muhaajiriin kalena dadkoodii iyo xoolahoodii iyo waxay haysteen oo dhan bay ka yimaadeen oo waxay u soo hijroodeen inay ilaahay iyo rasuulkiisa u gargaaraan labadaaba madiino wada yimaadeen labadubana ka wada yimaadeen dhankii laga imanayey socod wada gale si soo wada rafaade laakiin markay madiino wada yimaadeen ma isku noocba maya saa daraaddeed buu nebigu lahaa inama alacmaalu binniyaat faman kanat hijratuhu ila allahi warasuulih fahijratuhu ila allahi warasuulih waman kanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'atan yankixuha ninkii u soo kacitimay xoolo uu helo ama haweenay uu guursado dee waa intaasun baa la yidhi isaga hijradiisii wax kale ma leh waa laba camal oo isku mid ah maxaa kala saaray waxa kala saaray qalbiga wixii ku jiray niyadu intay leekayd baa kala jiray bale waxaan odhan karnaa masalatu lhijra waxaa qur-aanku inoo tilmaamayaa cid acmaalulhijra aan dhammaysba tirin madiineba soo gaadhin laakiin haddana ajarkii helaya ilaahay baa wuxuu leeyahy waman yakruj min baytihi muhaajiran ila allahi warasuulih ثuma yudrikhu اlmowt faqad waqaca ajruhu calى allah wa kana allahu gafuura raxiima ilaahay baa wuxuu leeyahy waman yakruj ninkii soo baxay ee gurigiisa ka soo kicitimay ee socdaal soo galay isagoo muhaajiran ila allahiya isagoo alle subxaanaه wa tacaala u soo hijrooday iyo rasuulkiisa inuu u gargaaro u soo hijrooday ثuma yudrikhu اlmowt laakiin geeriya ay dhexda ku haleesha baa ilaahay leeyahy hijradii maba dhammayn ma gaadhinba madiina geeri baa dhexda ku hesho wuu dhintay ilaahay wuxuu leeyahy kaa faqad waqaca ajruhu calى allah ajarkiisa ilaahay buu ku leeyahy subxaanaه wa tacaala ilahayna waa gafuuru raxiim walow yuu hijradii dhammaystirin waa muhaajir baa ilaahay leeyahy ajarkiisa waa la aqbalaya maxaa lagu aqbalay waxaa lagu aqbalay biniyatihi biqasdih waxaa ka go'onayd inuu ilahay rasuulkiisa u gargaaro wuxuu ku socday caynka kan idan waxaan leenahay camalka xataa haddaad bilowdo oo aanad dhammaynin aanad dhammaysba tirin laakiin niyadu ay saalix ahayd oo ahayd qasdigaagu mid saxiixa u ahaa ajarka waad helaysa bal haddaad camalka samayso laakiin halkii aad ula socotay meelaan ahayn uu kaaga dhaco oo bartaad toogatay aad la weydo ajarka waad leedahay biniyatik baad ku leedahay matala xadiidkii bukhaaraa kugu filan ee uu nebigu ka warramayay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nin reer banu israa'iil ama dadkii horeo kacay habeen baa nin guureeyey la tasadaqanna laylata bisadaqa buu yidhi caawa intaan guureeyo sadaqaan la baxaya muxuu habeennimo u doortay wuxuu rabaa inuu ikhfaa sameeyo inuu ka baxo maxay magac iyo maamuus iyo inaan la garanba ciddan wax sadaqadaysatay qofnaba isagaan ogayn habeen madow intuu iska baxo inuu cid un lacag dul dhigo ayuu u socdaa ilaahay dartiina inuu ula baxo hadhowna aan cidi ammaanin oo la odhanin waa ninkii hebele lacagta badan bixiya ama caynka aan cidiba odhanin oo la garanin idan sadaqadiisa inuu qariyaa buu rabay sadaqada qarsoonina aad ba ajarkeedu u badan yahay nebigu wuxuu yidhi faqaabalahu rajulu fi طariiq danna annahu min ahli اlfaqri faacطaahu sadaqatah habeennimadii isagoo xoolihii la guuraynayo isla dadka masaakiinta iyo foqorada sii ayaa mid ka soo baxay mid baa ka soo horbaxay kiibuu wuxuu mooday inuu miskiin yahay kiibuu xoolihii intuu ku raray buu iska dhaafay intuu xoolihii siiyey ayuu iska weydaartay subaxii markii waagii baryey ayuun baa tuuladii magaaladii laysruraystuuno show ninkan xalay xoolaha lagu rarayba waa tuuggii magaalada tuug buu ahaa guuraynayo tuganimo u socday dabeetana magaaladii baa soo toostuun oo subaxii la leeyahay xalayto tusaddiqa allaylata calaa saariq tuug baa xalay sadaqa la siiyo xoolo la siiyey
ninkii wuxuu yidhi wallaahi sadaqadaadii halkii aad la rabtay kumay dhicin laakiin ilaahay buu iskaga mahadiyo wuxuu yidhi allahuma laka alxamd calaa dalik ilaah waadaa mahad leh laakiin wuxuu yidhi taasi malaa waa kaa yara murkacataye mid fiican oo kale caawa la guuree habeen kaluu haddana sadaqa la guureeyey siduu u socday oo uu yidhi caawana sadaqa la baxee ayaa waxaa ka soo horbaxay siduu lacagtii u siday hantidii ula ordayey gabadh dumarka xunxunaba gabadh xunoo zaaniyadaa ka soo horbaxday dabeetana intuu ku raray ayuu dhaafay waagii baa beriyey magaaladii waxay isla soo kacday iyadoo la leeyahay gabadhii xumayd ee suuqa joogtay xalay midunbaa lacag ku raray oo xoolaa xalay la siiyey ilaahay buu iska mahadiyey haddana wuxuu yidhi halkii aad la rabtay weli kumay dhicin habeen saddexaadkiiba haddana sadaqa la guureeyey isagoo isla meel fiican aad la dhigtid habeenkii saddexaadna siduu socday waxaa ka soo horbaxay magaalada ninkii taajirka u ahaa dabeetana wuxuu is yidhi uun kan habeenka guuraynaya isna waa baahan yahay uun waa ku raray kiina waagii baa beriyo waxaa la yidhi ninkii maalqabeenka magaalada u ahaa xalay mid baa lacag duldhigay oo siiyey baa la yidhi mid baa hanti helay dabeetana nebigu wuxuu yidhi ninkii riyaa loogu riyooday dabeetana waxaa loo sheegay ru'yo arko riyadii waxaa loo sheegay amaa sadaqatuka calaa saariq falacallahu an yastacifa can sariqatii waxaa lagu yidhi hantidii aad siisay tuugga waxaa la arkaa inuu tuuganimoba dhaafo adigu ilaahay dartii baad ula qasdidee hantidii tuugga gacantiisa ku dhacday falacallahu waxaaba la arkaa inuu yidhaahdo war hanti heshayo dadka waxooda u nabadgeli hantidii aad siisay baa la yidhi zaaniyadda gabadha xunna falacallaha an tastacifa waxaa la arkaa iyana inay zinadiiyo suuqalkiiba iska dayso marka horeba in hunguri waday baa laga yaaba ayay suuqa u gelaysa inay istidhaahdo xoolaad heshaye khasiisnimada iskaga baxa si aad haniga ku rartayna baa la yidhi waxaa la arkaa in uu isna is yidhaahdo war waxaan hanti alla kaa siiyey wax ka bixi dadkuba waa kan wax sadaqadaysanaye idan ninkan camalkiisii isagu meel buu la qasdiyey ugamasase dhicin haddana waxaa loo tilmaamaya in laga aqbalay macnuu muxuu sheegayaa waxa uu tilmaamayaa niyadu iyo qasdigu iyo maqsuudka uu qofku leeyahay acmaasha inay meel fog gaadhsiiso waxaan leenahay camalka waxa badiyaaba waa niyo bale waxaa dhici karta qofku camal aanu samaynin weligiiba aanu samaynin ajarkiisa inuu helo camal aanad samaynba ajarkiisa inaad hesho waa maxay sababta sababta waxa weeyaan qofka niyadiisa khaalis ahayd camalkan inuu sameeyana shay cudurdaara baa yimi oo ka celiyey shay maanica baa u diiday shaygu doonaba ha ahaado maalan tusaalayaal baa ka bixinaya nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka imaamu nisaa'i ibnu maaji ba warinaya sheekh alalbaanina uu saxiixa ku tilmaamay waxa uu tilmaamaya abidardaa ayaa nebiga wuxuu ka sheegay man ataa firaasha wa huwa yanwi an yaquuma yusallii min alleyl ninka habeenkii ama gabadha habeenkii furaashkeedii tagtay qofkaa furaashkiisii intuu tagay iska seexday laakiin markuu seexanayay waxaa niyo ka ahayd oo ka go'nayd inuu caawa intuu tooso uu salaatu leyl tukado taasuu niyaystay oo go'aan bay ka ahayd waanu ku talagalay inuu soo kaco laakiin xag allay ka timiyo faghalabatu caynaah buu nebigu yidhi dabeetana hurdadii unbaaba ka tiro badatay salaatuleyl buu go'aansanaa inuu soo tooso laakiin salaaddii subax unbaabuu indhaa kala qaaday wakhti aan salaatuleyl la tukan karin ee salaaddii subax joogto ayaabuu indhaa kala qaaday faghalabatu caynaahu xataa asbax ilaa iyow ka waabaristay ay ishiisu ka xoog badisay kutiba lahu maa nawaa wa kaana nawmuhu sadaqatan calayhi min rabbihi caza wajal nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kan niyadiisii waa loo qoraya muxuu niyeeyey inuu salaatuleyl u kaco salaatuleyl qof tukadaa laga soo qaadayayo waa loo qorayaa hurdadiisiina sadaqo kaloo ilaahay siiyey bay ahayd hurdadiisiina sadaqa alla siiyey bay ahayd salaatuleylkiisiina waa loo qoraya ninkani camalka ma samaynba haddana sidii qofkii istaagay buu camalka helay muxuu ku helay
wuxuu ku helay niyadiisii saalix ahayd ama khaaliska ahayd ama alla dartii uu sameeyey. waxaa kuugu filan ghaswatu tabuuk. dagaalkii tabuuk wuxuu ahaa dagaal goor kurul dhacay. dagaalkaa waxay saxaabadu u baxday waktigan xagaaga ah, samarka ah. xagaagana waxaa taqaanin khaliijku inuu aad u kulul yahay. meel bil loo soconayana dagaalka waa loo qabanayay, waa baxeen. laakiin saxaabada badh baa ku jiray ducafaa oo aan hanti haysanin oo waayey awr ama neef ay fuulaan. saxaarahaas haddee la lugaynayaayo neef ay fuulaan bay waayeen. nebigay u yimaadeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi, waxay idhaahdeen waxaanu fuulla nasi. dadkii wuu u wada waayey nebigu gaadiid markaa, qayb ka mida unbuu gaadiid siiyey. laakiin dadkii badh badan baa loo waayey maxay? gaadiid baa loo waayey. dabeetana iyagoo murugaysan oo ooyayay nebiga ka tageen. ilaahay baa wuxuu leeyahy laysa cala aducafaa walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu ma axmilukum calayh tawallow acyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun. kuwan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala dembi korkooda ma saara kuwii kuu yimi ee kuugu yimi inaad siiso gaadiid ay fuulaan ee aad ku tidhi waxaan idin saara ma hayo, ee idinka tegay iyagoo ooyayo ilmadu dareerayso. kuwaasi waxay la baxaan inay waayeen ilaahay subxaana wa tacaala u qaban maayo. sidii buu ku baxay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. xadiidka saxiixaynka ku soo arooray dhexda markii la sii socday ama la soo socday buu nebigu wuxuu yidhi inna bilmadiinati aqwaaman maa sirtum masiira walaa qaطactum waadiya ilaa kaanuu macakum qaaluu yaa rasuula allahi wahum bilmadiina. nebigu wuxuu yidhi madiine rag baa joogay intii aynu soconnay aynan doox ka gudbin ama socod aynan soconin ilaa iyo waynala socdeen buu nebigu yidhi. saxaabadii arrinkii waa ku adkaa. wahum bilmadiina bay idhaahdeen, ma iyagoo madiine joogay haddana annaga nala socdeen ilaa annagu waa soo dagaal tagnay oo bil baanu lugayn oo safarkaasaanu gallay, ma waxaa nalala socday iyagoo madiine weli jooga bay ku yidhaahdeen. nebigu wuxuu ku yidhi wahum bilmadiina, madiine iyagoo jooga ayay idinla socdeen. laakiin nebigu muxuu sheegay xabasahum alcudr alaa ashrakuukum fi lajri bay riwaayadda muslimiina sheegaysa. yacni muxuu tilmaamayaa nebigu nimankaasi ajarka way idinla wadaaga. sababtu waa maxay? xabasahum alcudru baa la yidhi. cudurdaar ayaa reebay, sabab ay ku hadhaan baa timi. idan dadkii jihaatamay ee waxaasoo safara galay nin gurigiisa fadhiyaa la ajar noqday oo isna helay ajarkii oo kale. sababtu ku helayna waxay ahayd liikhlaasi niyati. ka dhab bay ahayd inuu ilaahay u diriro, ka dhab bay ahayd inuu nebi moxamed raaco salawaatu ullahi wasalaamu calayh. laakiin wixii wasiile uu awoodayo dhanna wuu sameeyey, laakiin wuu waayey cid qaada. saas daraaddeed baa xadiidka imaamu muslim warinaya wuxuu nebigu ku tilmaamayaa dad baa jira man sa'ala allaha shahaadata bisidq ballagahu allahu manaazila ashuhadaa wain maata calaa firaashi. nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, xadiidka saxiixu muslim ku yaalla, qofka ilaahay u weydiista si dhab a shahaado inuu ilaahay dartii u dhinto, qofka dhabnimo u weydiista. sidqigu waa maxay? waa qof ay ka dhab tahay hadduu jaaniskaa helay inaanu baajiyeen. waa qof ay ka dhabtay kuwa ilaahay qur-aanka ku lahaa min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir. haddii sidqigaasi uu jiro oo ay run ka tahay oo niyadaasi ay go'aan ka tahay, hadduu fursaddaa helo inuu ilaahay dartii u dhimanayo, ilaahay kuwaa wuxuu gaadhsiiyaa booska dadka shuhadadu ay galaan xataa hadduu furaashkiisa ku dul dhinta baa uu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh. wain maata calaa firaash, xataa hadduu furaashkiisa iskaga dhinto oo aanu dagaalba gelin, manaasishaasi baa alla gaadhsiinaya subxaanahu wa tacaala. waxaynu leenahay axaadiistaasoo dhamme waxay tilmaamaysa man sa'ala allaha alqatla fii sabiili اllah saadiqan min qalbih
أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه أصحاب السنة النساسي soo arooriyeen waxaan leenahay markaa mas'aladan ikhlaaska loo yaqaan iyo qofku niyadiisu inay ilaahay khaalis u dhabtay oo uu dagaalamayo oo uu acmaasha ka run sheegayo oo aanu dan kala lahayn inuu ilaahay ku xidhmo mooyaane ajarkaa wuu helayaa idan waxaad si dhinac dhigtaa mid dagaalamay oo aan waxba helin baa la sheegay mid dagaalamay oo aan waxba helin waxa kaloo la sheegay mid aan dagaalaminba laakiin manaasishan gaadhay maxaa u dhaxeeyey kii dagaalamay aan waxba helini wuxuu ahaa mid niyadiisa ay ku jirtay shay kale ilaahay dartii aan camalka u wadin ama reerkiina wax ka dhici ama magac iyo maamuus aad heshid ama nin waa ninkii hebele geesigaa ha lagu yidhaahdo qarad kale iyo dan kalea dagaalkiisu ahaa kanna maba dagaalamin laakiin ilaahay baa qalbigiisa wuxuu ku og yahay inay dhab ka tahay inuu dagaalamo inay dhab ka tahay inuu alle dartii u dhinto laakiin imkaaniyaadkiibuu waayey wixii suurto gelin lahaa possibilitieskii ayaa u suurtoobi waayey kanina ajar ku helaya ka kalena waxba heli maayo sidaa awgeed ayay culammadu waxay tilmaamaan mas'alada tan loo yaqaano niyada iyo ikhlaasku inay mas'alo khatara tahay waana kii xadiidka nebigu ku tilmaamayay in allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum ilaahay jidhkiina iyo sidaa u xoog weyntiin ama sidaa u kala suurad fiicantiin u kala qurux badantiin u kala dhaldhalaal badantiin taa ilaahay ma eego ilahay agtiisa taas waxba uguma fadhido isagaa idin wada abuuray ama fool xumow ama dhalaal badnow ilaahay suncadiisii baad ka mid tahay qiimo uguma fadhido markaasi noocaad u eg tahay ajarna ilaahay kaa lagagama helo laakiin waxaa ilaahay agtiisa ajar lagaga helaa oo u alle maxallu nadarkiisa qalbigiinna iyo camalkiinna qalbiga maxaa la eegayaa madaa ikhlaasikum lilah camalka kani inta uu dhab idinka ahaa inta aa u samaynayseen ilaahay subxaanaه wa tacaala daraaddii inta uu dhabnimadiisu ay idiin jirto maadaama uu arrinku caynkaa yahay waxaan leenahay acmaasha waaweyni meel fog ma jirto ee waxay jirtaa qalbiyadeenna tan inaynu ka shaqayno acmaasha waaweyni waxay jirtaa yani nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi bay ku yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow ninka xamiye iyo tolkii inuu difaaco u dhinta iyo ninka u dagaalama inuu xoolo soo helo kaayuhum fii sabiili اllahi bay dhaheen kee baa ilaahay jidkiisii ku taagan wuxuu nebigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man qaatala litakuna kalimat ullahi hiya alculya fahuwa fii sabiili اllah waxaan kale ma jiraan sidaa awgeed waxuu nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aakhiro dadka yubcaثu الnaasu calىa niyaatihim buu nebigu yidhi dadka waxaa lagu soo saarayaa niyadoodii siday u kala niyo fiicnaayeen khayrka u kala jeclaayeen qalbigoodu ilaahay ugu kala xidhnaa acmaashooda ilaahay ay ugu badhax tirayeen aanay wax xumaa ku daraynin saas bay u kala acmaal sarraynayaan yuxsharu الnaasu calىa niyaatihim riwaayo kalaa tilmaamaysa xadiidka hore imaamu axmed baa warinaya sheekh alalbanina waa tasxiixinaya ka dambana ibnu maaja warinaya sheekh alalbanina waa tasxiixinaya idan ninkii magaca dagaalka u galay ama maamuuska u galay ee nebiga su-aashiisa lagu celceliyey ajar ma leeyahay baa la yidhi ninka magacna rabana inuu ilaahay u dagaalamo waxaa lagu tilmaamay laa shaya lah laa shaya lah laa shaya allah buu nebigu ku celceliyey war waxba ma leh bale waxa uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiid saxiixa inoogu tilmaamayo axaadiid alqudsiya aakhire marka la yimaado ilaahay inuu odhan doono ana agna alagniyaa'i can الshirk anigu waxaan ahay ka ugu qanisan ugu deeqtoon mid wax lala wadaajiyo ee camal kasta oo cid kale niyadiisa aniga layla wadaajiyey kii layla wadaajiyey aan anigu u daayey baa ilaahay odhan doona subxaana wa tacaala ee kaah laga doonto waxaan tilmaamaynaa leenay ummadda muslimiinta ahi xataa taariikhdooda marka la baadho waxa ay ku guulaysan jireen ee ku horumari jireen waxay ahayd junuudda ilaahay akhfiyada ee qarsoon alakhfiyaa
kuwaasi acmaashooda aan qofnaba wax kaga rabin ee muslimka ku dhex jiray bay ahaayeen. walidalik ayaa ibnu qutayba maalan waxa uu soo aroorinayaa taariikhdiisa cuyuun alakhbaarka. maslama ibnu cabdilmalik ninkii la odhan jiray ciidamada muslimiinta markaa watay ayaa waxaa la yidhi meel baa furashadeedii ku adkaatay. meel ayaa furashadeedii aada ugu adkaatay. muslimiintii dagaal bay galeen. dabeetana nin muslimiintii ka mid ah ayaa markii dambe baxay. meel buu dalooshaday qalcaddii ka mid ahaa. dabeetana wuu galay. markuu galay ayuu gudaha ka soo dagaalamay. dabeetana nimankii albaabka hayay buu xoog ku soo jiidhay. albaabihii qalcadda ayuu dadkii muslimiintaa ka furay. dadkii oo dhammi saxaabadii ee dadkii dagaalka ku jiray saxaabo ma aha in badaniye waxay galeen meeshii. waa la furtay. allahu akbar tuunbaa la maqluuno gudihii baa dadkii wada galay. waa la furtay. ninkii ciidanka muslimiinta watay baa wuxuu yidhi waxaan rabaa ninkii muslimiinta albaabka u soo furay ciidamo waa la hadli weyey. ninkii camalkan sameeyey ilaahay dartii buu samaysanaya. in la dallacsiiyo askari noqdo corneyl noqonaya iyo in martabad la siiyo iyo in bilageesi la siiyo iyo inuu lacag helo iyo waxaas uga socdo. wuxuu u socdaa camalkiisa kan inuu janno ku galo. sida daraaddeed wuu qariyey. ninkii intuu khudbadeeyey buu wuxuu yidhi waxaan idinku dhaariyey ilaahay baan idinku dhaarinayaaye ninkii camalkaa sameeye muslimiinta meesha u furay ha yimaado. cid baa la hadli weyday. ninkii amiirkaa khaymadiisii buu iska tegaa la yidhi. yani taambuggii yaraayo u deganaa. dabeetana nin baa soo baxay oo meeshii buu u yimi. ninkii taambugga ilaalinayay buu wuxuu ku yidhi warheedhe amiirka waxaad ku tidhaahdaa ninkii meesha dalooliye ka galay meesha ee soo furay ayaan war ka hayaa. war ninkaas warkiisaan hayaa. ee u sheeg. amiirkii waxaa la yidhi ninkii aad nagu dhaarisay in la soo sheego warkiisa haya halkan jooga soo daaya buu yidhi. wuxuu yidhi ninkaa warkiisii baan kuu sheegaya. 3 shardi haddaad ii fulinaysa buu leeyay baan ninkaa warkiisa kuu sheegaya. shardiga koowaad waa inaanad magaciisa sheegin. aanad odhan ninkii meeshaa furtay ee inoo soo furay hebel hebel buu ahaa. magaciisa inaad soo hadal qaadinoo sheegin. shardiga labaad buu yidhi waxa weeyaan khaliifadii muslimiinta madaxweynihii muslimiinta in aad waraaq u qorin aad leedahay hebel hebel baa meel noo soo furay oo aanad u sheegin. shardiga saddexaad waxa weeyaan buu yidhi wax abaalmarina inaanad siinin. 3daa shardi haddaad fuliso ninkii waa la soo helayaa buu yidhi. inaan magaciisa la sheegin. inaan madaxweynaha loo sheegin. inaan abaalgud la siinin. ninkani muxuu raadicaynayaa marka? dhaartii la dhaariyey unbuu rabaa inuu ka baxo. laakiin mar rababa ajar dhammaantiiba dunida kuma doonayo. ninkii amiirkaa wuxuu yidhi waan yeeli lahu calaya dalik. arrinkaa waa igu leeyahay buu yidhi. qaala idan faanahu buu yidhi. marka kan waa aniga haddaba buu yidhi ninkaas. ninkii intaa sameeyey waa aniga. maanta ninka wax yar muslimiinta u sameeya wuxuu jecelyahay dadka oo dham inay wada magacaabaan. khayr allaha sii hebel baa halkaa ka baxay hebel baa sidaa ka samey in la wada magacaabo. wuxuu jecel yahay hadday shahaadaad tahay taqdiiriya iyo mid maamuusa iyo mid magaca in loo wada dhibo la yidhaahdo waa shahaadadii ninkii halkaa furay ama caynkaa sameeyey. wuxuu jecel yahay in sijillaadka lagu wada qoro oo la sheego magaciisa. wuxuu jecel yahay madaxda muslimiinta in loo sheego oo la maamuuso. wuxuu jecel yahay adduunka inuu magac ku heliyo maamuus. laakiin dadka kani islaamka dadkii u gargaaray waxay ahaayeen dad aan haba yaraatee magac iyo maamuus adduun doonaynin. dad waxay raadinayaan uu yahay uun aakhire in la liibaano oo la guulaysto. walidalik baa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka imaamu الnisaa'i warinaya albaanina uu tasxiixinayo. riwaayaadka qaar baa waxay ku soo arooreen inamaa yansuru allahu hadihi اlumma bidaciifiha bidacwatihim wa salaatihim wa ikhlaasihim. dadkan muslimiinta ilaahay wuxuu ugu guuleeyaa kuwoodii
ducafada ahaa alla berigoodii salaadoodii iyo ikhlaaskoodii yacni ciidanka meesha galayba nasrigu sababtiisa marar baanu ku imane uu ku yimaada kuwa masaakiinoo gacmaha ilaahay u taagayey kuwa qalbi furaayo alle subxaanaه wa tacaala niyo saalixa uu ku ogaa kuwa dadka muslimiinta u ducaynayay ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ducadooda aqbalaa sidaa awgeed buu nebigu wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh kam min ashcata agba dii طumrayn laa yu'bahu lahu low aqsama calى اllahi laabarah wuxuu nebigu leeyahy salawaatu اllahi wasalaamu calayh badana mid timuhu basaasoobeen timihiisu ay basaas yihiin oo boodh leh oo haylya xun oo hadduu ilaahay ku dhaarto subxaanahu wa tacaala ilaahay dhaartiisa fulinayo waxaana ka mida buu nebigu yidhi albaraa ibnu malik yacni wuxuu nebigu sheegayaa nin hadduu yidhaahdo wallaahi caynkaasay noqonaysaa arrinku sidii uu ku dhaartay ilaahay ka dhigayo yacni saxaabada rag baa ka mid ahaa intay dhaartaan yidhaahdaa wallaahi berrita caynkaasay noqonaysaa waxa uu ku dhaartay ilaahay rumeeyo sideeda ka dhigo waxaa ka mida buu nebigu yidhi albaraa ibnu malik waxaa ka mid a axaadiistu say sheegayeen uways ilqarani muxuu sheeganayey waa ninkaynu shalayna tilmaamaynay ee reer qaran muraad ka sii ahaa ee taabiciga ahaa ee uu cumar markii uu ilaahay u bariyey yidhi aan waraaqda kuugu qoro ee lahaa waxaan ka door bidaya an akuuna fii khabraa'i nnaasi axabu ilay inaan ka mid ahaado dadka kuwooda nakirada aan cidibo garanaynin ayaa agtayda lagaga jacayl badanyay waxaa la tilmaamaa waxaynu odhan karnaa waxa muslimiinta ilaahay ugu gargaaraya dadka saalixiinta ee caynkaasiya walidaalika ayay iyaguna wax weyn u arkayeen qutaybata bnu muslim ninkii la odhan jiray markuu kaabul furanayey kaabul shanimka afghanistan markuu furanayey ciidamadiisa waxaa ka mid ahaa baa la yidhaha moxamed ibnu lwaasic nin la yidhaahdo moxamed ibnu lwaasic waa nin taabiciintii waaweyneyd ka mid ahaa waa ninkuu ku tilmaamayey imaamu xasan albasri zayn lqura uu ku sheegayey ayuu wuxuu yidhi war bal soo eega moxamed ibnu waasic ciidanka meeshuu ka joogayo siduu yahy waxaa la yidhi moxamed ibnu waasic halkeen buu joogaa isagoo farta cirka u taagayo alla barya subxaana wa tacaala usbucuhu tilka buu yidhi farta uu ilaahay u taagayo ayaa axabu ilaya min 30,000 canaan 30,000 oo faras farta moxamed ibnu lwaasic baa agtayda loogaga jacayl badan yahay buu leeyahy yacni wuxuu ku tuhmayay inuu yahay nin mukhlisa oo ilaahay subxaanaه wa tacaala dartii wax u samaynaya walidaalik ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh axaadiis badan waxa uu ku tilmaamaya dadkan saalixiinta ah ee wan wanaagsan ee qalbigoodu nadiifta ka dhigay in laga jacayl badan yahay wax tiro badan oo kaloo la qabto haddaan qisaska taariikhiga noocan ku saabsan ee culammadu soo naqliyaan isdhaahdo akhri wakhtigu inaguma fillaanayo waxaanse tilmaamayo keliya wuxuu yahay muslimiinta waxa ilaahay ugu gargaari jiray dadkooda mukhlisiinta ah dadkooda daacada ah maanta waxaa batay baynu leenahay maqshuushka dadka inta acmaashiisu alla dartii tahay baa soo yaraanaya dana badan dad labaa tiro batay ilaahayna xajkii dhammaa ee la xajayay wuxuu leeyahay lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum alle ma gaadha baa alla yidhi subxaanaه wa tacaala xoolahan aad qalaysaan ee xajkii lagu qalayo hilibkeedu iyo dhiiggeedu toona alle ma gaadho laakiin maxaa gaadha weeyaan waxaa gaadha attaqwa minkum alla ka cabsigiinna gaadha iyo qalbigiinna waxa ku jira waxaa idinkugu filan xadiidkii imaamu axmed iyo tirmidi bay warinayeene xasanun صaxiixa uu ku sheegay tirmidi sheekh ilalbanina tasxiixinayey can abi kabshat alanmaariyi radia allahu canhu anahu samica rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam xadiidkan u fiirsada صaxaabiga la yidhahdo abi kabsha waxa uu leeyahay waxaan maqlay nebiga oo 3 ku dhaaranaya
arrinna ka warramaya saddex buu ku dhaartay nebigu saddexduu ku dhaartay maxaa ka mid ahaa xoolaha inaan sadaqadu yaraynin nebi maxamed baa ku dhaartay qof la dulmiyey oo sabrayna ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu cizi iyo sharaf unu sii kordhinayo albaab baryo qof furay oo dadka baryeyna in albaab faqri isna loo furayo saddexdaa nebigu wuu ku dhaartay qofka baryada badan leh albaab faqri in loo furayo qofka sadaqada la baxay inaan xoolihiisu yaraanaynin iyo qofka dulmiga intuu iska dulqaata cafiyey ee sabray in ilaahay subxaanaه wa tacaala ciz iyo sharaf u kordhinayo ama aladii uxadiثukum xadiiثa faxfaduuh taan idinka warramayo idin leeyahay qayba waa tan buu yidhi wuxuu nebigu tilmaamaya inama dunya liarbacati nafar adduunku afar qof buu u sugan yahay adduunka dadka jooga afar baa loo qaybiyey qof ilaahay xoolo iyo cilmi siiyey cilmi iyo xoolaba wada haysta oo ilaahay subxaanaه wa tacaala xoolihiisaa kaga cabsanaya oo tolkiiyo qaraabada xidhiidhinaya wax siinaya oo ciddii u baahnayd siinaya oo xuquuqdii ilaahay ku waajibay ka bixinaya kaas buu nebigu yidhi wuxuu ku sugan yahay manaasisha kuwa ugu sarraysa afdal اlmanaasil wuxuu wada haystaa qofka kani cilmi uu ilaahay kaga cabsado iyo hanti buu wada haystaa idan hantidii wuxuu ku adeegsanayaa khayrkii cilmiguna wuu hagayaa wuxuu kaloo nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh addoon ilaahay cilmi siiyey alla garashadii la siiyey laakiin aan xoolaba haysan bal midhkan u fiirsada kani cilmi buu leeyahay xoolase ma haysto hanti ma laha laakiin waxa uu niyaysan yahay oo wuxuu ku dhawaaqaya waa saadiqu niya yacni niyadiisu waa dhab oo wuxuu leeyahay low anna lii maalan la camiltu fiihi bicamali fulaan haddii xoolo ilaahay isiin lahaa sida hebel uu u galay baan ana u geli lahaa yacni waan sadaqadaysan lahaa waa la bixi lahaa kan wuxuu nebigu ku tilmaamayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isaguna kii hore ayuu la ajariyey yacni kii hore ajarkiisa muxuu ku gaadhay kii hore wuxuu haystay xoolo iyo cilmi dabeetana xoolihii wuxuu u isticmaalay cilmigiisii oo sidii ilaahay ugu talagalay buu u bixiyey kan labaad isagu xoolaba ma haysto wax xoolaa ma leh laakiin waxaa haystaa niyad wanaagsan oo dhab oo run ah niyaddiisaa wanaagsani waxay sheegaysaa haddii gacantiisa ilaahay bilyaneer uu ka dhigi lahaa oo hantii gacantiisa soo geli lahayd waxa ka dhab oo ka run ah siduu ninkaasi u galay inuu isna u geli lahaa inaanu kibir iyo qooq ka qaadeene inuu khayrka iyo wanaagga u adeegsan lahaa ayaa isna go'aan iyo dhab ka ah kani ajarkii kaasi helay oo kale buu leeyahy buu nebigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh muxuu ku helay biniyati idan niyadu waa igsiirka camalka badiya soomaalidu waxaa jirta geed ay yidhahdaan cawtalgaziir baa la yidhahdaa islaamaha sheega sanduuqa haddii lagu rido bay yidhaahdaan wixii ku jiraa way barakoobaano waa tiro bata waxba yacni haddaad in yaroo lacag iyo geedkaa isa saarta bay yidhaahdaan waa la soo guraa uno ma yaraado niyada saalixa baa cawtulgaziirkaa wax la saaro haddaad niyo saalixa camalka saarto waa cawtulgaziirkaasi aan go-aynin ee camalkaagu meel walba aad ku gaadhayso sidaa ogeed buu nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa kaloo dadka ka mida buu leeyahy labadaa markuu sheegay mid ilaahay xoolo siiyey laakiin aan cilmi la siinin cilmigu ilaahay kaga cabsan lahaa iyo dariiqa saxa uu ku mari lahaa ma haysto hantidiisa wuu hayaa hantida markaa muxuu ku samaynayaa wahuwa yatakhabad fii maalihi bigayri cilm hantidiisii buu la kufkufayaabaa ilaahay leeyaha aqoon darri la'aan dabeetana ilaahayna kaga cabsan maayo qaraabiyo dad sokeeyo oo xaq ku lahaana wax ka siin maayo kuwii xuquuqda iyo zakadiiyo wax ku lahaa ka bixin maayo waa habaarqabe kan wuxuu nebigu yidhi fahuwa biakhbati almanaasil meel la dega meelaha u fool xun luu degi doonaa kaasina ninkani waa nin hanti sitay laakiin aan ilaahay ka cabsanina hantidiisa faajir ku noqday mid afraad baa jira bal kanna u fiirso
oo aan kaa ka sokaynin haddana aan hantiba haysan iyo camaltoona kani waa maxay kan afraad wuxuu nebigu yidhi waa midaan ilaahay cilmina siinin xoolana siinin labada midna ma haysto xoola ma haysto oo waa faqiir alla kacabsi iyo cilmina ma haysto oo waa dhaandhaan kale labadaa markuu isku darsaday waa doqonnimo dhan baa isugu tagtay waxa uu leeyahay haddaan xoolo heli lahaa sida hebel u tuntaan u tuman lahaa ama meel heblaayaan ka boodi lahaa ama meel heblaayaan tuurisu aadi lahaa meel heblaayaan degi lahaa halkaasaan ka soo tegi lahaa alla yaa halkaa ka soo tuntoo taga waxaasaa niyadda kaga buuxa xoola ma haysto cilmina ma haysto kani buu nebigu yidhi biakhbati almanaasil meesha xun buu degayaa kii horuu la xukum yahay camalba ma samaynay muxuu ku degayaa qalbi xumadiisuu la degayaa meesha tan waayo ka dhab weeyaan hadday gacantiisa hantidu soo gasho inuu intanba soo boodboodi lahaayoo soo mari lahaabaa ka dhaba laakiin tamardarrun baa meesha dhigtay yacni wuxuu la mid yahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qolo wuxuu tilmaamay laba muslima buu nebigu yidhi hadday seefs kala hor yimaadaan ka la dilay iyo ka wax dilayba naartay gelayaan buu nebigu yidhi markaasay saxaabadu yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo kan wax dilay garanaye ka la dilayna maxaa naarta geeyey wuxuu nebigu yidhi mid waliba kullun kaana xariisan calaa qatli saaxibi nin waliba wuxuu ku dadaalayay walaalkii inuu dile waa laga ayaan roonaaday uun yacni seeftunbaa kan hore ku kala hordhacday ama xabadunbaa liishaanka laakiin isba hadduu la helayo kama sii daayana waa dili lahaa weeyaan idan labadaba waa ahli naar buu tilmaamaya kan ninkii xoolaha haystay ee diinta daraa meel xun buu ka dhacay kan xoolo la'aantu hayso ee aqoon darradana ku darsaday ka horuu la mansilo yahay maadaama niyadiisa waxa ka buuxa ay tahay hadduu hanti heli lahaa inuu filim helima geli lahaa iyo inuu meel heblaayo ka boodi lahaa iyo inuu halkaa tuuris ku tegi lahaa mar hadday tahay waxa u gumtani xataa ayuu teginee dembigiisuu leeyahay waa caziima qofku mar hadduu gaadhsiisan yahay sidaa awgeed waxaynu leenahay niyada wanaagsani waa cawtulgaziirkaas baynu leenahay wax walba badiya niyada xumina waa mid wax walba xumaysa laakiin niyada iyo acmaasha marka laysu eego saddex qaybood bay u qaybsamaa acmaashu macaasida niya wax kama tarto macaasida niya wax kama tarto shaygu hadduu macsi ahaa laakiin aad tidhaha niyo saalixaan u sameeyey kan baan u sameeyey waxba ma kordhiyo idan macaasida niya ma beddesho matala xoolo xaaraanaad soo qaadatay dabeetana waxaad tidhi masaajid baan ku dhisaya ilaahay baan ugu dhowaanaya waxba noqon maayo waa isla macaasi un طaacaad kasta shayga طaacada ah niyadu kow asaxeeda iyadaa ka wakiila haddaanad niyo saalixa samaynin ma asaxayso inama alacmaalu biniyaat waa ka labaad tadciifkeeda labanlaabkeeda niyadaa ku xidhan waxaa nebigu tilmaamaya waxaa jira dirham u dhigma maxay malaayiin u dhigma yacni dirham qofkii bixinayay uu saadiq ahaa ka dhab ahaa intan uu haystay meel khayrle ku bixiyey ama se nin laba dirham ba haystay ama kanoo qura haysto kiina bixiyey iyo nin malaayiin iska haysta balaayiinoo 1 milyan bixiyey 1 milyan waxaa laga yaabaa dirhamka kani nafta inuu kaga lex jeclo badnaayo uga arkaa idan camalka aqbalkiisa iyo martabadaha uu yeelanayaa wuxuu ku xidhan yahay niyadu inta ay leeg tahay ashyaada mubaaxa ah ee bannaan niyo saalixa haddii lagu sameeyo iyaduna taacay isu beddeshaa khayr bay noqotaa ajar baa laga hela yacni maalan inaad wax cuntaa waa niyo saalixa waa mubaax cunadu laakiin hadduu qofka muslimkii u cunayo inuu cibaadada u xoogaysto inuu ilaahay dartii ugu jihaatamo inuu xuquuqda alle ku gudo cunada lafteedu ajar ka heli kara waa kii nebigu tilmaamayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nin markuu gabadhiisa u tago ama haweenaya ninkii isqabay markay isu tagaan inay ajar kale helayaan haddii niyo saalixa ay meesha taallo waxay ku yidhaha ilaahay rasuulkiisiiyo ma iyaga oo shahwadooda gudanayay haddana ajar helayaan haa buu nebigu ku yidhi hadduu xaaraan dhigi lahaaba soo ma heleen idan shayga mubaaxa ah niyadu waxay u beddeli kartaa camal khayra ikhlaasku marka ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy oo nebiyada lagu leeyahy qul innii umirtu an acbud allaha mukhlisan lahu diin qul illaaha acbudu mukhlisan lahu diini
war waxaad tidhaahdaa baa ilaahay leeyay nebi maxamedow dadka waxaad ku tidhaahdaa waxa lay faray inaan ilaahay caabudo laakiin anigoo qalbigayga khaalis yeelayo cibaadadayda ilaahay dartii u samaynaya muslimiinta ilaahay wuxuu leeyay waxaad tidhahdaa qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi اlcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin waxaad tidhaahdaa baa ilaahay leeyahy salaadayda iyo gowracayga iyo cibaadadayda dhammaantood noloshayda iyo geeridayda dhammaantood ilaahay baan u keli yeelo u khaalis yeela cidna ugu shariig yeelay ama la wadaajin maayo saasaana lay faray ambiya ilaahay qur-aanka ku ammaanaya nebi muuse ilaahay muxuu ku ammaanaya wadkur fi lkitaabi muusa inahu kana mukhlasa wa kana rasuula nabiya inahu kana mukhlisan aw mukhlasa waxaa alle ammaanaya subxaana wa tacaala yuusuf kadalika linasrifa canhu الsuuءa wاlfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin ibraahim baa ilaahay ammaanaya inii wajahtu wajhiya liladii faطra الsamaawaati wاlأrض xaniifa wma ana min almushrikiin idan waxa muhimkee loo baahan yahay waxa weeyaan inaynu acmaasheenna badinno laakiin acmaashu maxay ku badataa waxay ku badataa inaynu qalbigeenna fatashno oo ka dhigno mid ilaahay oo keliya u hoggaansama inta badan dadku markuu dhibtu qabsato ayuu waxa kaloo dhan ilaabayo ilaahay qura yidhaahda waxaa laga yaabaa haddaad dakhtar tagto oo uu ku dawayn kari waayo oad meel kasta ka dhacdo waxba weydo maalinta dambe inaad si dhaba ilaahay u barido laakiin waxay ahayd marka horeba inaad ilaahay si dhaba u barido waxaa laga yaabaa marka dagaalu ku hele ee ku qabsada ee dhibi ku qabsatay ee naftu isugu kaa timaado baryo dhaba inaad ilaahay barido walidalik baa ilaahay gaalada wuxuu ku tilmaamayay waidaa khashiyahum mawj kadulal dacwu allaha mukhlisiina lahu diin haddii badda markay galaan baa ilahay yidhi haddii mawjadi dul marto oo sidaa hooska hadhayso nafta ay u baxaan u yaabaan dacaw allaha mukhlisiina lahu diin baa ilahay yidhi markaa ilaahay bay wada xasuustaan asnaamta iyo ciise iyo cid walba waa laga tagaa markay noqoto inay kaa boodo iyo ilaahay baa la wada xasuustaa baa ilaahay leeyahy laakiin ilaahay muxuu leeyahy falamaa najaahum ila albar faminhum muqtasid markase badda laga soo saaree ilaahay berriga ku soo nabadgeliyo dadku wixiiba waa ilaaba waa isbedelaan idan wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtigaa'a wajhi rabbihi laclaa waxaynu u baahanay markaa waxa weeyaan mas'alo qalbiga waxay yidhahdaan waxaa qalbi loogu bixiyey isgegedigiisa qalaba yaqlibu af carabiga waa isgedi qalbi waxaa loogu bixiyey bay yidhahdaan litaqalubi gedgadoonkiisa imika aad ilaahay wax walba weydiisanaysaa daacadu noqonaysaa mar dhow unba haddana shaydaan iyo nafi kuu sheekaynayaan wax walba ad ilaabaysaa waxaa loo baahan yahy waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu qalbigiisa aada uga shaqeeyo inuu isku dayo acmaashiisa oo dhan inuu ilaahay ku xidho uu ilaabo wixii alla ka sokeeya inaad isku daydo inaad la saaxiibto ku xidhantid dadka qofba qofkaad is leedahay qofkani uu ka ikhlaas badan yahay waayo ilaahay baa nebi moxamed wuxuu ku leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhah walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati اdunya nebi maxamedow baa ilaahay yidhi naftaada waxaad ku sabirsiisaa inay la degto oo la saaxiibto oo la joogto kuwa ilaahay caabudaya gelin horiyo gelin dambaba laakiin bishardi maxay yuriiduuna wajha iyagoo ilaahay un wejigiisa doonaya magac iyo maamuus iyo xoolo iyo hanti wax kale iyo waa ka dan lahayn ee taasoo qura ka dan leh walaa tacdu caynaaka canhum baa ilahay yidhi ishaada ha dhaafin idan saaxiib waxaad ka dhigataa qofba qofka aad si leedahay ilaahay buu uga daaco badan yahay qalbigiisu wuu ka saafisan yahay ilaahay buu kaga xidhan yahay kuwaa ku xidhan oo ishaada ha dhaafinin baa ilaahay yidhi adigoo maxay raadinaya turiidu ziinata alxayaati اdunya idan ikhlaasku waxaynu ku tilmaamaynaa ikhwatii fi lcaqiida ikhlaasu qofka muslimka ah camalkiisa waa waxa ka dhiga inuu wax ka soo qaada yeesho miisaan yeesho
waa waxa ka dhiga camal yar oo aan naf badan lahayn inuu aakhiro isagoo buuraleeg u yimaado. waa waxa ka dhiga camal aanad samaynba asliyan ajarkiisa inaad heli karto. waa waxa ka dhiga camal aad bilowday oo aanad dhammaystirin in ilaahay kuu dhammaystiro. waa waxa ka dhiga camal aad ku dhaqaaqday laakiin halkii aad la rabtay aan ku dhicin in ilaahay subxaanahu wa tacaala halkii aad la rabtay ku rido. idan waxaan leenahay nolosha gebigeedaba waxa hagaajiyaa waa masalada. amhile iyo nusuus tiro badan le waa akhriyi karaynaa, laakiin mawduuca haddii la fahmo wuu kooban yahay. sida daraaddeed waxaan ku soo koobayaa intaa. ilaahayna waxaan kaa baryayaa subxaanahu wa tacaala idinkiiyo annagaba inuu ina waafajiyo sida khayrku ku jiro, acmaasheennana uu ka dhigo kuwaynu isagoo maalinta qiyaamaha la hor tagno oo inaan cid kale wax kaga rabin. wallahu aclam billahi tawfiiq.